gabadh waliba wiilka aad dhashay iyo xaaskiisu marka ay isqabtaan ka khaldan ee aad eedda saarayso bal hadda adigoo aan been sheegin intaad naftaada la yara shoogto bal hadda eeg bal walaalka iyo xaaskiisa ka khaldan marka ay isqabtaan iyana bal hadda naftaada weydii tusaalayaal noocaas baadsi oon bal naftiina weydiiya waxaan bal ii warrama maxaa idiin soo baxay waxay yidhaahdeen xaqiiqatan runtii bay sheegeen waxay yidhaahdeen waxaa noo soo baxday walaalkay iyo xaaskiisa in xaaskiisu khaldan tahay waxaa noo soo baxday inankayga iyo xaaskiisa in xaaskiisu ka khaldan tahay waxaan ku uri waayahay soo intaasi kuma soo bixin haa soo xitaa in adeerka iyo xaaskiisii may khaldanaan haa waayahay mar kale miisaanka saar baan ku uri adiga iyo ninkaaga iyomaa khaldan dabadeetana waxaa soo baxday ninkaa khaldan iga khaldan markaan taa miisaanka saaraan ninkaa iga khaldan waayahay raggina waa saasoo kale isagana markaad tahdo bal hadda adigii xaaskaagu miisaankiisa saarana wuxuu odhanayaa haddi xaaskayga khaldan horta waxaa soo baxaysa oo taasi ku tusaysaa cadaalad darrada dadka hadda nool ee soomaalida ahi siday cadaaladdii uga fogaadeen sida ay waaqaca iyo xaqiiqda uga fog yihiin sidoo qofku laba weji u leeyahay ninkii laba weji u leeyahay ee marka isagiiyo xaaskiisu isayaana ay xaasku u khaldan tahay marka inantiisa iyo ninka qaba isayaana ninkuu khaldan yahay hadba waxa xiga baa la saxan marka isagiiyo xaaskiisu isahayaan naftiisa xigta marka naftiisa la saxan gabadha xaaskiina waa saas leeg marka iyadiyo ninkeedu isayaan nafteeday u hiilinaysaa xaqa oo dhan way ka tegaysaa markaa ninkaa khaldanaanaya laakiin marka wiilkeeda iyo xaaskiisu isayaan wiilkeedaa xigaya marka wiilkeediiba u hiilinaysaa xaaskiiba khaldanaanaysa taasi waxay kuu muujinaysaa rag iyo dumarba halka cadaaladda laga taagaya